wasiirkeena qaaliga ah Allah u naxariistay wasiir Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil waxaan leenahay Ilaahay idin dib yareeyo waxaan leenahay dawladda Soomaaliyeed way idin garab taagan tahay wuxuu ahaa haliyay Soomaaliyeed waxaan leenahay waa ku mahadsantiin inaad shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed walaalkiin iyo aabihiin aad la qaybsateen waxaan intaas kadib rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijiyo maantay qof haliyay ah ayaa ummadda Soomaaliyeed ka baxay oo soo aasayna Cabdiraxmaan wuxuu aniga kamid ahaa wasiiradeyda ila shaqeeya waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego marka dalkan waxa aan ka raadinayna waxay tahay in la xoojiyo midnimada iyo xorriyadda ummadda Soomaaliyeed Cabdiraxmaan baa tusaale u ahaa dalkan waxaan u taaganahay habeen walba u soo jeednaa in qabyaaladda qarannimo lagu bedelo Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil baa tusaale u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in shuruucda Soomaaliyeed sareynteeda laga shaqeeyo Cabdiraxmaan baa aasaas u ahaa dalkan waxaan ka shaqeynaa in dastuurkiisii la dhammaystiro isaga ahaa aabihii shaqadaas hayay dadka Soomaaliyeed inay isugu kaamid ahaadaan Cabdiraxmaan baa isagana tusaale u ahaa musuqmaasuqa in laga fogaado Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa aasaas u ahaa marka ay khatar timaado oo dadka qaar ay caadifadoodu shaqayso Cabdiraxmaan baa maskaxdiisu shaqayn jirtay Allah u naxariistay oo dhihi jiray waa in shuruucda dalka iyo dastuurka la ilaaliyo dawladnimada Soomaaliyeed waxa aasaas u ah qof mar walba fikirkiisa cabira wuxuu ahaa ninkii naga baxay Allah u naxariistay qofan fikirkiisa la gambar ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego qoraalkii ugu dambeeyay Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo aniga ii soo diro waxa uu ahaa khudbad uu jeediyay madaxweyne Mareykan oo dhahaysay haddii aad Faransiiska tagto Faransiis noqon maysid haddaad Talyaaniga ku noolaatidna noqon maysid Talyaani haddii aad meel walba tagtid ku noolaatidna ma noqonaysid waddankaas marka ugu dambeeya waddankaada ayaa waxa uu ahaanayaa waddanka aad laga rabo inaad waddan ka dhigatid inaad waddankaada jeclaatid in dawladnimada la oogo wuxuu iigu soo dirayay uu ii sheegay ra'iisul wasaarow maanta ayaan fursad haysanaa waa inaan Soomaaliya sharafteeda iyo karaamadeeda soo celinaa waxaa kaloon rabaa hadalkii iigu dambeeyay oo aniga asagoo isla fadhino oo aan ku wada hadalnay waxa uu ahaa Soomaaliya way daashay qabyaaladda iyo xukun jaceylka iyo laalaabka aan meel iska dhigno aan ka shaqeyno mustaqbalka dhalinyarada soo koraysa si aan ugu samayn lahayn dalkii ay ku noolaan lahaayeen mar labaad waxaan leeyahay qoyskii Cabdiraxmaan uu ka baxay waan ogahay inaa xanuunsanaysaan waa idinla xanuunsanaynaa laakiin waxaa ogaataan haddii qof Soomaaliyeed uu sharaf soo hooyay aabihiin iyo walaalkiin wuu soo hooyay annaguna waxaan idinku caawinaynaa in idinla duceyno waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh